lagu tacadiyay inaan hal iyo laba ka iraado anoo ku hadlaya dhaqanka iyo afka dadka reer galmudug ilaahayna waxaan ka rajeynayaa waxaan ku hadlayaa inay noqdaan wax dalka iyo dadka iyo diinta wadan u ah ummadda midnimadeeda wada jirkeeda iyo walaalnimadeeda ka shaqeeya anigu dhaqan baan ahay dad badan oo waxa weeye Soomaaliyeed dad badan oo reer Koonfur Galbeedana ehel baan nahay dhaqan waxa weeye dhaqan baan nahay dhaqan wadaag baan nahay waxaanu ka shaqeynaa sidii ummadda loo mideyn lahaa wax badan oo waxa weeye aynu ka xalnana way jireen waxaan rabaa inaan laba maadaba qiro marka hore waxaan rabaa inaan qiro dadka reer Koonfur Galbeed inay runtii yihiin dad Soomaaliyeed oo ahludiina oo muxtarimiina oo runtii ku wanaagsan dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta iyo martisoorka dad badan oo reer Soomaaliyeed iyo reer Galmudug iyo waxa weeye reer Banaadiraba ay ku dhaxnool yihiin si wanaagsanna u sooray oo soo dhaweeyay inaan qarabaan rabaa walaalahay uguna mahad celiyo wixii sala dhacay runtii waxay ahaayeen wax ummadda Soomaaliyeed gaf ku ah ummadda reer Koonfur Galbeed lagu tacadiyay la dhibaateeyay dadkii waxa weeye isdhaxgalka bulshada iyo midnimada u yimid kubadda doonaya inay wax ka dheelaan runtii iyo dadkii taageerayay iyo budidiiba shalay lagu tacadiyay la dhibaateeyay runtii aad baan uga xumahay shalay waxay ahayd runtii maalin taariikhi ah dhalinyaradii reer Koonfur Galbeed waxay runtii muujiyeen inay yihiin dad waxa weeye ummadda Soomaaliyeed haddii la aado aqoon diiniya iyo maadiba markii hore lagu garanayo inay runtii kaalmaha koowaad kaga jiraan marka la shalay waxay xaqiijiyeen runtii inay markii sportigii la aadana ay lambar 1 u yihiin kubad waxa weeye aad u qurxoon oo dadkii daawanayay ama waxa weeye dadka kale aan reer Koonfur Galbeed ahayn ama kuwa reer Koonfur Galbeed bay ku qanceen ummadda Soomaaliyeed dhan bay ciyaareen laakiin waxa weeye garin laba nin kama wada qosliday shalay waa laga guuleystay iyagoo ku qanacsan baa loogu daray waxa weeye in lala dagaalamo la aflagaadeeyo la dhibaateeyo anagu waxa weeye dad muslimiin ah baynu nahay dhaqan haddaanu nahana waxa weeye qofka muslimka waxa la yiri walaalka markuu gardaray hana u heeli marka laga gardaray hana u heeli markuu gardaray waxaad ugu helinaysaa waxa weeye inaad tiraa walaalkay waad gardaran tahay ka joog marka laga gardaran yahay la dulminayana waxa la rabaa waxaad ugu helinaysaa inay noqdaan af iyo adin waxa weeye iyo maal baynaad ku difaacdo walaalahay iyo dadka dhaqankooda kamid ah ee afkooda aan ku hadlay waxaan galayaa inay shalay walaaladood ku tacadiyeen inay dhibaateeyeen inay dulmiyeen waxa ay ku sameeyeen ilaahay oo san raali ka ahayn diinta aan ku wanaagsanayn dhaqanka aan ku wanaagsanayn bil aadnimada aan ku wanaagsanayn dadkii wax ku gaareen ilaahay baan uga rajeynayaa inuu boogadhayo walaalahayna si guud baan runtii uga raali gelinayaa dadka reer Galmudug dadka reer Koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Banaadir gaar ahaan beelaha habargeed ee abgaale magaalada Muqdisho dega waxaan ugu baaqayaa ciyaarta Galmudug iyo gobolka Banaadir inaan la qaban in la joojiyo dhiig joojin in la sameeyo dadkii walaaladeena ay shalay lagu tacadiyay in lagu baxo loo hoydo dulmigii iyo tacaddigii loo geysto waxa weeye ilaahay un baa magafaahay in waxa weeye cabs laga weydiisto in walaalaheen loo tago dadkii shalay gaaray kontanka kuna dibadbaxayay walaalahood dhibaateeyana inay mar kale soo baxaan inay dibadbaxyo sameeyaan oo shacabkooda ay ku muujinayaan walaalahood ay ugu hoyanayaan gafkii iyo tacaddigii ay u geysteen ay ugu hoyanayaan ciidamadii dadka rasaasay dhibaatada u geystana waxa la rabaa in waxa weeye aqaabteedii ay maraan oo shariicada islaamka la waafajiyo inaan gardara garab lagu siino aan loogu helin in waxa weeye shariicada islaamka ay maraan dhaqanka reer Galmudug dhaqanka gobolka Banaadir iyo beelaha Hawiina waxaan ka codsanayaa waxaan dardaarayaa marka hore inaan ilaahay ka baqno inaan dulmi iskugu helin walaalahayn waxa weeye inaan ugu hoyano wixii shala dhacay inaan cafis weydiisano isbitaalada inaan ku booqano guriyahooda inaan ugu tagno in waxa weeye marka aan saamaxaan wixii dhacay aan ugu hoyano kadib in loo soo jeesto qabashada ciyaarta finaalka ee dawlad goboleedka Galmudug iyo gobolka Banaadir laakiin waxaan qabaa inayan maanta dhici karin ciyaarta walaalahayn isbitaalada ayagoo ku jira inaan ciyaar la qaban karin oo aan la farxi karin waan qirayaa dadkeena inay ku xadgudbeen dadka walaalahooda inay ku tacadiyeen ilaahay baan ka rajeynayaa inay walaalahooda u hoydaan anigana anoo afkooda ku hadlay dhaqanka afkoodii waxaan leeyahay walaalayaal oo nacafiya waxay dhacana waxaan diyaar u nahay
عفش إذا كويدي سنة ريبوت لان لما ظلمين ريجب لان لما ظلمين ذاتك اللي ظلمين الوت عدي وريك وفرق البيت وعدد دقن إلو الوذاقي وحو بان هاي وحان ليا ولا ليا لو رالي هذا ذاتك الرجل مدوغي ريك وفرق وحوي ريك والكبراد دمان بيلا هوينا وحان كرجيري أنا إذا كبو هيدانو لأن يرادي ما أنت إسبيتال هذا تقطي بيلا هوي أفكو وكهلي ولا لذو بوغضنا ومعلن عمر وقامنا waxaan leeyahay ilaahay ay ka abaal mariyo maalinka qiyaamo wax wanaagsan baad sameeyeen kuwii reer Koonfur Galbeed markii loo tagay si wanaagsan u soo dhaweeyana waxaan leeyahay astaantiin waa martisoor iyo walaal jacayl waad ku sultantihiin samir iyo waxa weey wanaag badan baad ku sultantihiin ilaahayna ha idinka abaal mariyo walaalahay iyo dadkan afkooda ku hadlaya dhaqankooda kamid ahana anoo ugaas Axmed ugaas Cabdinuur ugaas Cilmiya afar oday ugaas ka ilaahay baa ka rajeynaya inay walaalahood u hoydaano waxay dhacay afiska weydiistaan war ma santa walaal aad baad ma santa ugaas laakiin aan su'aalan ku weydiinayaa sababta adiga kaga qabtay horta ugaas baa tahay waa run in ugaas tahay galmudug ka soo jeeda barnaamijyo hore oo adiga qayb qaadatay gobolka Banaadir arrintan si jeestas uga hadlay odayaashii dhaqanku si wanaagsan uga ma hadilno imika raali gelinta bixinaysa maxaad markii arrintu dhacday aad raali gelinta u bixin weydeen oo arrintan dadkii dhibaatada sameeyay u soo qaban weydeen fiidnimo shabeelle baan la hadlay codkaygu uu ku jiraa waa daawo kartaan shabeelle news miya waa gartay صح kulmiyaan ka hadlay aniga kaliya ma hadlayna imaam Umar Macalin Abshir baa isagana hadlay oo si wada jira waxa weeye aan wada hadalnay waxay dhacay waan ka tacsiyeynay dhaqanka kale reer Galmudugna Ilaahay baan ka rajeynayaa iyo gobolka Banaadir beenay sidoo kale uga hadlaan waxa weeye anagu walaaladeen inaan dulmi u helin ma rabna bal waxaan diyaar u nahay dulmiga iyo tacadiga ay geysteen inaan walaaladeen reer Koonfur Galbeed afiska weydiisano ما يوجد سعد بانكو سلام يا دين أدو دي الله كعبس بدن يدين بدن قرني عطاي ولا تكون مع صنتي أنا رالي قلين تنوع صدرته بل يجان يجدون مركا يجون واحد كذا هذا وأنا مع صنتي thank you السلام عليكم وياي كسوها وجاسك قلمدو ورنتي شاقينه إذا عندك هذلي أرنتنا ورالي قلين كبحيي لكن أرنتو حيوتها الله كونفور قلبات يجا أيام قرص الدبات